السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan daawadayaal idaylkiinba meel kastood caalamka nagala socotaanba kuna soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo idinka soo tabinayna telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee Somaliland National TV barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan kaga hadalnay qodobo ay kamid ahaayeen Android oo ah barnaamijka ama nidaamka ay ku shaqeeyaan telefoonada caaqilka ama waxa la yiraahdo smartphone-ka inagu qodobkii labaad ee barnaamijkeennii hore kaga hadalnay YouTube oo ah barnaamijka ugu weyn caalamka ee la isku weydaarsado laguna daawado fiidiyoyada barnaamijkeena toddobaadkan iyo maantana waxaan idinku haynaa kuna qaada dhigi doonaa shirkadda Amazon oo loo tixgeliyo inay tahay halkii ay ka soo bilaabantay nidaamka ama habka ganacsiga ee internetka wax lagu kala iibsado shirkadda Amazon xarunteedu ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ee cariga Mareykanka iyo waliba waxa kale oo aan kaga hadli doonaa Jeff Bezos oo ah ninkii ama asaasiyay shirkadda isla markaana ah madaxa sare ee shirkadda ka hor bartamihii sagaashamaadkii tiknoolajiyada jirtay waxa ahayd mid ahraad qaad in qofku inta uu kombiyuutarkiisa dul fadhiisto uu wax ka iibsaday isagoo oon gurigiisa ka bixin suuqna tagin waxay u eekayd wax khiyaaliya ahna mid aan suurtagal ahayn ama base qofka caqligiisa kuba soo dhici karin iska badaa in fikrad caynkaas laga fekeree haddii aad fikrad caynkaas oo kale u sheegi lahayd qof kale waxay u dhawaan lahayd inuu ku arki lahaa inaad tahay qof maskaxda looga jiro ama base aan hagaagsanayn haddii aan si kale u dhigano waxay ahayd mid aad uga fog waxa ku soo dhici kara qofka bini'aadanka maskaxdiisa iyo caqligiisa 1995 ayuunbay ahayd markii u horeysay ee shirkadda Microsoft ay iib keentay Windows 95 oo ah mid ka mid ah softwareadii ugu iibka badnaa ee taariikhda soo mara iyadoo isla sanadkii ugu horeeyay ay shirkadda Microsoft iibisay in ka badan 40 milyan oo koobi taasina waxay ahayd barbilowgii iyo hordhaca qaraxii hore tiknoolajiyada iyo .com-ka waqtiyadaasi waxaa si xad dhaaf ah kor ugu kacay kobaca iyo koritaanka dadka isticmaalaya internetka iyadoo maalin kasta ay ku soo biirayeen isticmaalka iyo adeegsiga internetka 100,000 oo qof oo kala jooga daafaha adduunka taasina waxay si xad dhaaf ah u dhiirigelisay Jeff Bezos oo ahaa asaasaha shirkadda Amazon isla markaana ah madaxa sare ee shirkadda Jeff Bezos waxa uu ku dhashay gobolka New Mexico ee cariga Mareykanka bishii January ee sanadii 1964 hooyadii iyo aabihii oo isku guursaday yaraan guurkoodu muu noqon mid raaga waxayna kala tageen wax yar uun kadib dhalashadiisii hooyadiina waxa ay markii dambe guursatay nin kale oo ah immigrant ama ka soo haajiray dhinaca dalka Colombia oo ahaa petroleum engineering magaciisana loo oran jiray Malcolm Bezos ahaana ninkii markii dambe soo koriyay 1986 ayuu Jeff Bezos ka qalin jabiyay jaamacadda Princeton University isagoo bartay cilmiga electric engineering-ka 1994 ayuunbay ahayd markii u horeysay ee Jeff Bezos oo ahaa ku xigeenka madaxa sare ee shirkad loo oran jiray DE Shaw oo ah mid ka mid ah shirkadihii ugu cadcadda uguna weynaa Wall Street ee ku yaalay New York uu iska casilay kana tagay shaqadiisii si uu u rumeeyo riyadiisii isagoo go'aan ku gaaray inuu ka guuro magaalada New York si uu ugu hawl galo ugana midho dhaliyo qorshihiisii iyo fikirkii uu watay oo ahaa inuu sameeyo stoorkii ugu horeeyay ee buugaagta lagu iibiyo si online ah ama internetka labadiisa waalid ayaa siiyay lacagtii maalgashiga ahayd ee ugu horeysay ee noqon lahayd raasamaalkii uu ku bilaabi lahaa xagaagii 1994 ayaa Jeff Bezos iyo xaaskiisa Mackenzie u soo hayaameen dhinaca gobolka Washington ee dalka Mareykanka iyagoo oo sita $300,000 oo ah lacagtii waalidkii soo siiyay Bezos iyo xaaskiisa Mackenzie waxa ay degeen magaalada Bellevue ee gobolka Washington kadibna waxa ay shaqaaleysiiyeen 2 nin oo ah programmers oo qora koodka application-kiisa si lamida sidii ay ku bilaabmeen shirkado badan oo aynu ku soo aragnay barnaamijyadeennii hore bilowgii hore Bezos waxa uu ku bilaabay
abaabulka iyo samaynta shirkadda Amazon garaajka gurigii uu deganaa. inkastoo ugu horeyntii uu ku bilaabay magacyo aan ahayn ka hadda jira, waxa uu ugu dambeyntii qaatay magaca Amazon oo uu ka baaray kana helay qaamuuska amaba dictionary-ga luqadda afka Ingiriiska, kaasoo ah ama macnihiisu yahay webiga ugu dheer adduunka. qorshihiisii u horeeyay waxa uu soo ururiyay liiska 20 product ama badeecadood ee uu islahaa waa 20ka badeecadeed ugu iibka iyo suuqa badan adduunka. kadibna waxa uu liiskiisii ku soo koobay 5tii uu arkayay inay yihiin 5ta ugu muhiimsan uguna suuqa badan, kuwaas oo kala ahaa CD-yada wax lagu duubo, hardware-ka amaba qaybaha qalabka kombiyuutarada, software-rada ama barnaamijyada ay ku shaqeeyaan kombiyuutaradu, fiidiyoyo iyo buugaag. Bezos markiisii dambe waxa uu go'aansaday in dukaankiisan online-ka ah uu noqdo mid uu ku iibiyo buugaagta oo kaliya, iyadoo sababtu ahayd in wakhtigaasi uu arkayay inay jirtay baahi badan oo dadka ka haysatay dhinaca buugaagta. 16 bishii Juulaay ee sanadii 1995 ayuunbay ahayd markii ugu horeysay ee website-ka Amazon.com si buuxda uu hawada u soo galay, albaabadana loo furay. aragtida habka dhisaynka iyo qaabka guud ee website-ku u yaalay ma ahayn maanta mid ishu ku sii raagayso daalacashadiisa haddii aad dib u eegto, laakiintiise xaqiiqadu waxay ahayd inuu maalintaa ahaa amaba dadku u tirsanayeen inay ahayd tallaabo hore loo qaaday oo ku soo kordhay dhinaca tiknoolajiyadda, dadyowga adduunkuna ay ku ahayd wax aad u weyn. markii uu horeysay meel ahayn awood dhaqaale oo ay ku xayeysiiyaan si dad badan u ogaadaan jiritaanka Amazon, habka kaliya ee lagu gudbinayay dadkana lagu barayay waxay ahayd in uu qofba qof u sii sheego. dadka intiisa badan fikradan iyo hawshan waxa ay ku sheegeen mid aan soconayn amaba aan suurtagal ahayn. haddana waa xaqiiq haddii aad hadaf leedahay una hawlgasho inaad ka midho dhalin karto. inkastoo ay adkayd dhib badanna u mareen sidii cagaha loogu taagi lahaa shirkaddan loogana dhigi lahaa mid dadku ku kalsoon yahay, bishii u horeysay gudaheeda ee shirkaddan la bilaabay waxaa buugaagta Amazon laga iibsaday dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka iyo weliba 45 dal oo kale. dadaal, qorshe iyo samir wada jira midho dhale. dhammaadka sanadii 1996 qiimaha iibka Amazon ay samaysay waxa uu noqday 15.7 milyan oo dollar. bilowgii iyo kacaakufkii hore ee Amazon waxay ahayd mid warwar badan iyo madax wareer badan gelisay investorska ama dadkii maalgashaday shirkaddan, iyadoo sababtu ahayd in dhammaan iibkii ay samaysay shirkaddu ahaa mid aan faa'iido loogaba celin qof kaliya, isla markaana shirkaddu gelisay malaayiin dollar samaysiga software-radii ay u baahnaayeen si ay u ballaadhiyaan una horumariyaan una kobciyaan ganacsigooda. inkastoo ay ahayd mid aad u khatar badan, ahaydna mid aan la saadaalin karayn natiijada ka iman karta in dhammaan lagu bixiyo wixii shirkaddu heshay ballaadhinta ganacsiga. bishii May ee sanadii 1997 ayuunbay ahayd markii u horeysay shirkadda Amazon timid suuqyada sayladaha lagu kala iibsado saamiyada shirkadaha waaweyn. waxaa markii u horeysayna lagu iibiyey $9.25 oo ah doolarka Mareykanka qiimaha halkii sheer ee shirkadda Amazon. inkastoo dadka intiisa badani u leekayd shirkaddani mid aan meel fog gaadhayn, faa'iidana aan laga heli karin, haddana isugeynta iibka sheerarka maalintaasi la iibiyey waxa ay noqdeen $54 milyan oo dollar. shirkadduna waxa ay dardargelisay shaqadii iyo tiknoolajiyadii kombaniga, iyadoo lagu soo daray waxyaabo ay ka mid yihiin one click shopping oo aad ugu sahlaya una fududeynaya marka ay macaamiishu rabaan inay wax ka iibsadaan. waxaa markiiba 3 laab u kacay iibka qiimaha saamiyada shirkadda. Amazon waxa ay noqotay mid aad u sii ballaarata, waxaanay qoratay mar kaliya 7,000 oo shaqaale cusub ah.
waxaa kaloo shirkaddu si weyn u ballaadhisay brodhaktiyadii ay iibinaysay, waxaana ay bilowday in laga helo brodhakt kasta oo jira, ka bilow cuntada, dawooyinka, caafimaadka, taleefaannada, jariiradaha, qalabka elektarooniga iyo haarweerada oo dhan, iyo weliba liis kale oo badan oo aynan halkan ku soo koobi karin. bishii Disembar ee sannaddii 1999kiina asaasaha shirkadda ee Jeff Bezos waxa jariiradda Times u magacowday inuu yahay Man of the Year. sanadkii xigay oo ahaa 2000 waxaa mar kaliya karaash garoobay dhammaan shirkadihii ama kombaniyadii tiknoolajiyadda. qiimaha istooga ama saamiyada Amazon iyo kombaniyadii kale tiknoolajiyaddu waxay noqdeen kuwa hoos u dhaca, waxaana taasi Amazon ku qasabtay inay shaqaalaheeda in badan oo ka mid ah ay shaqada ka erido. bishii Sebtembar ee sanadii 2001 qiimaha iibka saamiyada Amazon waxa uu gaaray halkii ugu hooseysay ee abidu gaadho, iyadoo qiimaha halkii sheeru tegay $5.97. intaa wixii ka dambeeyay Amazon waxa ay dadaal cusub u gashay sidii ay u soo jiidan lahayd maalgashi cusub. bishii January ee sanadii 2002 Amazon waxa ay bilowday inay website-keeda si publica ugu soo bandhigto kuna soo qoraan dhammaan khasaaraha iyo faa'iidada kumbanigu la kulmo, si ay u dhiirigeliso dad cusub oo ku sameeya maalgashi. taasina waxa ay soo jiidatay in badan oo ka mid ah dadka maalgashada kombaniyada. intaa wax yar kadibna waxa ay Amazon bilowday inay partnership la noqoto shirkado yaryar oo badan, kuwaasoo gaadhayay ilaa 400 oo shirkadood oo ah kuwii iibin jiray alaabaha tafaariiqda sida dharka iyo cuntooyinka. 2003 Jeff Bezos waxa uu qaaday tallaabo hor leh oo ahayd inuu iibsado kombaniga Blue Origin oo ah shirkad tiknoolajiyadda ah looguna talagalay inay soo saarto erbixiyeyaasha loo diro hawada sare. 19 bishii Noofambar ee sanadii 2007 Jeff Bezos waxa uu soo bandhigay brodhakt cusub, isagoo markii u horeysay kaga dhawaaqay barnaamij TV-ga ah oo lagu casuumay. brodhaktigaas oo ah Kindle Fire-ka ay soo saartay Amazon, kaasoo ah mid loogu talagalay in lagu akhristo buugaagta laguna kaydiyo. qiimaha Kindle Fire-ka oo markii ugu horeysay lagu bilaabay iibkiisa $399 shantii saacadood ee ugu horeeyay waxaa laga iibsaday tiro badan, iyadoo ilaa maanta taasi tahay mid aan la shaacin oo sir u ah shirkadda. waxaa lagu qiyaasaa in la iibiyey shantii saacadood ee ugu horeysay 2 milyan oo xabo. bilowgii horena Amazon si ay dadka ugu dhiirigeliso waxa ay buugaagta kaga soo iibsan jireen shirkadaha daabaca qiimo u dhaxeeya $12 ilaa $13, kadibna waxa ay dib ugu iibin jireen isaga oo ku jira Kindle Fire-ka $9.99. Amazon si ay dadka u bartaan brodhaktiyadan cusub amaba Kindle Fire-ka waxa ay u badheeneen khasaare xoog leh, iyadoo kobaca iyo horumarka isbeddelka Amazon noqday mid xawaare aad u sarreeya ku socda. xagaagii sanadii 2009 waxa ay Amazon iibsatay dukaan weyn oo dharka iyo kabaha ku iibiya online lana yiraahdo Sabo, iyadoo siisatay qiimo dhan $1.2 bilyan. intaa wixii ka dambeeyay waxa competition adag ku soo fool yeeshay Kindle Fire-kii Amazon, iyadoo 27 bishii January ee sanadii 2010 uu markii ugu horeeyay Steve Jobs u soo bandhigay brodhakt cusub, kaasoo ah iPad-ka ay soo saarto shirkadda Apple. iPad-ka oo ah mid qabta hawlo badan oo ay ka mid yihiin in lagu akhristo buugaagta online-ka, taasi waxa ay habeen madow gelisay Kindle Fire-kii Amazon. Jeff Bezos ayaa si adag uga jawaabay arrintaas, isagoo mar kaliya dhulka dhigay qiimihii lagu iibinayay Kindle Fire-ka ee ahaa $399. waxa uu mar kaliya ka dhigay $139 oo kaliya. isbeddelka iyo horumarka tiknoolajiyadda waxa ay keentay khasaare iyo faa'iido badan. tiknoolajiyaddu waxa ay fududaysay waxyaabo badan, waxaana laga maarmay brodhaktiyo badan, kuna kaliftay in albaabada loo xidho shirkado badan.
Kindle Fire-ka Amazon ee lagu akhristo buugaagta iyo iPad-ka shirkadda Apple waxa ay albaabada u xidheen mid ka mid ah shirkadihii ugu waaweynaa ee daabici jiray buugaagta oo lagu magacaabi jiray Borders. Amazon oo hadba dhinac ka dayeysay horumarinta ganacsiga iyo tiknoolajiyadda waxa ay mar kale la timid fikrad ah dhinaca TV-yada iyo filimada. iyadoo la shir timid Amazon Prime oo ah barnaamij lagu kiraysto laguna daawado filimada oo ku shaqeeya TV-yada caaqilka amaba waxa la yiraahdo Smart TV-ga. iyadoo suuqa ay iskaga hor yimaadeen tartan weynina dhex maray shirkadda kale ee Netflix. 2011 waxa shirkadda u qaabilsan cirbixinta iyo hawada sare waddanka Mareykanka ee NASA ay $22 milyan ku siisay shirkadda Blue Origin ee ay leedahay Amazon inay u samayso cirbixiye loo raaco hawada sare. kadibna asaasaha shirkadda Amazon ee Jeff Bezos waxa uu noqday ninkii saddexaad ee ugu taajirsanaa dunida isagoo lacagtiisu dhammayd waqtigaasi $18.1 bilyan. Amazon oo ka bilaabantay geeraajka guriga uu deganaa asaasaha shirkadda waxa sanadkii hore lagu qiyaasay inay ka shaqeyso headquarter-ka Amazon ee ku yaala magaalada Seattle ee gobolka Washington 230,800 oo shaqaale ah. qiimaha halkii share ee Amazon lagu iibsadana inta badan hoos uma soo dhaafo inta u dhaxaysa $830 ilaa $840. waana mid ka mid ah shirkadaha ugu qaalisan adduunka. qiimaha guud ee shirkaduna waxa uu dhan yahay $292.6 bilyan. Jeff Bezos oo ah ninka shanaad ee ugu taajirsan adduunka ahna ninkii asaasay shirkaddan Amazon isla markaana ah madaxa sare ee shirkadda oo ka shaqeysa caalamka intiisa badan waxa uu ku bilaabay shirkadiisa $300,000 oo ay siiyeen waalidkiis. maantana waa ninka shanaad ee ugu taajirsan adduunka lacagtiisuna waxa ay dhan tahay $45.2 bilyan. qiimaha nafta iyo ixtiraamka dadka kale aad ku leedahay waxa ay ku xidhan tahay dadaalka aad noloshaada geliso. inaad ka shaqaysiiso maskaxdaada noloshaadana aad u aragto mid aad adigu wax ka bedeli karto iyo in aan qofna wax ku dheeraynin waa wadada kaliya ee aad u mari karto isbedel aad samayso noloshaada iyo horumar joogta. haatan iyo tan inagoo soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena toddobaadkan iyo maanta waxa idiin soo diyaariyay idin la socotiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Maxamed. waxaana si gaar ah ugu mahadnaqaya Axmed Maxamed Cabdiraxmaan iyo Maxamed Salaxley oo igala qayb qaatay barnaamijkan. tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.